wakaalada sahminta hawada sare ee NASA ayaa iyadu waxay qaaday meero cusub oo dhulka ka durugsan masaafo iftiinku u socon karo 40 sanadood oo buuxa meeraha oo ay ku wareegayaan 7 kowkab oo xajmiga dhulka leeg iyadoo 3 ka mid ah kowkabyadaasi ay ugu wareegayaan masaafo macquula waana meere ama xidig laga heli karo biyo taasoo macnaheedu noqonayo in mar haddii biyo laga helay noloshana laga heli karo telescope-ka hawada sare ee NASA ee Spencer SST ayaa si cad waxa uu muujiyay qaab dhuleedka xidigaasi sida buuraha dhagaxleyda ee ku yaala iyo biyaha waran hoostiisa waxaana baaritaanada NASA ay saameeyeen hadiiba meerayaasha xajmiga dhulkeena ay yihiin kuwa diirimaadka cadaadda ee ka jira uu keeni karo in biyaha jiifa ay dareere isu bedelaan waana mid ka mid ah shuruudaha ay ku xiran tahay nolol meeraha ka suura gasha labada telescope ee NASA ee SST iyo TRUST oo isaguna caan ku ah isticmaalka dhulka ayaa waxa uu dhex qaaday oo dhex dabaashay xidigaha waxaana xogaha ay soo qabteen horseed u yihiin baaritaano iyo daraasado mustaqbalka lagu sameeyo meerahaasi ama xidigaasi oo ay daba gocleynayaan 7 meero oo kale isagoo ah xidig cimilada ka jirta ay qabowdahay